بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي كسر دواذا chapter ka money and banking. وأنو كو قاضي ديجي دونو لعقتا إيا بنجيدا. إنه كلا قاضي دونا لبا قيبود قيب كهدي دونتا لعقتا إيا قيب كهدي دونتا بنجيدا. 10 ككوات chapter كنا وحاو كهدي دونا waxa loo yaqaano barter trade-ka iyo lacagta. Barter trade-ku waa qaab ganacsiyeed la isticmaali jiray intii aysan soo bixin lacagtu, kaasoo dadku ay isdhaafsan jireen badeecado. Casharkani marka uu dhamaado, waxa ardaygu awood u yeelan doonaa in uu sharaxo waxa uu yahay barter trade, sidoo kale inuu qeexo lacag, inuu ogaado shaqooyinka lacagta, sababaha keena dadku inay lacag haystaan iyo astaamaha lagu garto lacagta. Casharkii oo bilowdayna waa kana. Waa maxay barter trade? Inta aynan qeexin ereyga barter trade, waxaynu u baahannahay inaynu qeexno ereyga barter. Barter waxaan leenahay waa iskala bedelashada badeecadaha iyo adeegyada. Barter trade-na waa trade-ka ama ganacsiga ku tacalluqa kala bedelashada badeecadaha iyo adeegyada, iyadoo aysan jirin wax standard ah oo lagu kala bedelanayo sida lacag oo kale. Si uu barter trade u dhaco, labada qof ee wax kala bedelanayay waxay u baahan yihiin in midba badeecada ka kala haysto uu u baahan yahay. Si kale haddaan u dhigno, barter trade-ku ma shaqayn karo haddii aysan jirin double coincidence of wants oo ah qof walba qofka kale shayga uu haysto inuu u baahan yahay. Tusaale ahaan, haddii qof uu haysto neef ariya isla markaana uu u baahan yahay loor raashina, waa inuu helaa qof haysta loorkii raashinka ahaa isla markaana u baahan neefkii ariga ahaa. Taasna waxaa la yiraahdaa double coincidence of wants. Bal aynu eegno advantageska iyo disadvantageska uu leeyahay barter trade-ku. Inagoo ku bilaabi doona waxyaalaha barter trade-ku uu ku wanaagsan yahay. Waxyaalaha barter trade ku wanaagsan yahay waxa ugu horeeya inaan loo baahnayn medium of exchange, oo macnaheedu yahay qofku inuusan u baahnayn wax uu wax ku bedesho. Arrinta labaadna waxaan leenahay waa habka ugu fudud ee wax lagu kala ganacsan karo. Qof walba wuxuu haysto ayuu wax ku bedelanaya. Sidoo kale labada qof ee wax kala iibsanaya khasab ma ahan mid walba inuu haysto lacagta uu aqbalayo midka kale. Midda labaad waxay tahay qof walbaahi waxyaalaha uu u baahan yahay dheeriga wuxuu ku bedelan karaa waxyaalo kale. Taasna waxay yareynaysaa in wixii dheeraadka u ahaa qofka ay ka khasaaraan. Disadvantageska ee barter trade-ka maxaa ka mid ah? Disadvantages waxa ka mid ah waxa laga yaabaa inaysan jirin double coincidence of wants. Bal ka waran haddii ay suuq iskugu yimaadaan 3 qof. Kan koowaad wuxuu haystaa gaari, wuxuuna doonayaa inuu guri ku bedesho. Kan labaad wuxuu haystaa guri, wuxuuna doonayaa inuu geel ku bedesho. Kan saddexaadna wuxuu haystaa geel, wuxuuna doonayaa inuu gaari ku bedesho. Sidee ayay u kala ganacsan lahaayeen? Pointiga labaadna waxa weeye marka uu barter trade jiro, waxa meesha ka maqan waxa loo yaqaano measure of value oo ah wixii wax lagu kala qiyaasanayo. Waxa la kala iibsanayo ma jiraan wax lagu kala qiyaasanayo. Midda saddexaad waxa weeye store of value ayaa ka maqan. Shaygaad soo iibsatay ama aad shalay soo iibsatay ma garanaysid qiimaha uu maanta kuugu fadhiyo. Sababtu waxa weeye ma taqaanid qiimihiisa lacageed ee shay kale ayaad ku soo bedelatay. Waxa ka maqan sidoo kale marka aad badeecadii suuqa la tagtid, waxyaalo kala duwan rabtid inaad gadatid, waxa laga yaabaa badeecadaha qaybtood in aan la qaybin karin. Midda ugu dambeysana waxaan leenahay waxa meesha ka maqnaanaya specialization-kii. Qof walba wuxuu u baahan yahay ayuu isku dayaa inuu soo saaro si uu uga badbaado wax kala bedelashadan dhibka badan. Casharka qaybta labaadna waxa weeye lacag ayay ku saabsan tahay. Ardada inta badani marka la yiraahdo lacag waa maxay, waxa laga yaabaa waxyaalo badan in niyadooda ku soo dhacaan. Currency-gii wax lagu kala gadanayay sida shillinkii iyo dollarkii, lacagtii mobilka ugu jirtay sida sahalkii iyo saadkii iyo wixii lamid ah, cryptocurrency-gii iyo waxyaalihii la midka ahaa, lacagtii credit card-ka ugu jirtay qofka, dahabkii, waxyaalahaas oo dhan ayaa niyadiisa ku soo dhacaya. Balse haddii aynu
qeexitaanka standardka siino lacag maxay tahay lacag waxaan leenahay waa badeeco kasta oo la isla aqbalay isla markaana loo adeegsan karo medium of exchange ama wixii lagu kala bedelanayay badeecadaha iyo adeegyada isla markaana la iskaga bixinayay deynta qaybtana waxaan u gudbi doonaa development of money say ku soo bilaamatay iyo heerarkii ay soo martay waxaan fiirin doonaa lacagii la isticmaali jiray example-na waa ka bixin doonaa insha Allah taala sidoo kale waxaan sheegi doonaa problemkii keenay in laga gudbo lacagii ugu horeeyay dadku isticmaali jireen waxay ahaayeen commodity money lacag ka samaysan badeeco dadku markay ku daaleen barter trade-kii waxay bilaabeen badeecadii qayb ka mid ah inay u isticmaalaan lacag ahaan badeecadahaas cusbada ka mid ahayd waxa ka mid ahayd faanta maroodiga ka mid ahayd waxa ka mid ahayd haraga sida haraga shabeelka iyo wixii la mid ah waxa ka mid ahaa kuulaha iyo wixii la mid ah kuwan ayay waxay u qaateen in ay ku kala bedeshaan badeecadaha ku kala bedeshaan laakiin lacagtaas ka samaysan badeecadaha kala duduwani waxay la timi cilado kala duduwan waxaana ka mid ah ciladaha la timi kow inay meel kasta iska taalo oo la helayo oo aysan scarce ahayn labo inaysan durable ahayn oo waqti dheer ku joogin lacagti oo isla markiiba ay baabaaayso saddex inaan la qaybin karin lacagaha qaybtooda iyo midda ugu dambaysa oo lacagtii inaan la qaadi karin sida inay tahay wax qoyaya ama burburaya lacagtaas ka samaysan badeecaduhu marka ay ciladahaas la timi dadku waxay bilaabeen inay uga gudbaan lacaga kale oo xallin kara ciladahaas ay leedahay commodity money waxayna bilaabeen inay isticmaalaan lacagta loo yaqaano metallic money oo ah lacag ka samaysan bir tusaale haddaan soo qaadanana lacagtaas waxa ka mid ahayd kobarka ama maarta qalinka iyo dahabka iyo kuwa kale oo badan muddo markii la isticmaalayay lacagahan waxay la yimaadeen cilado dhowr ah oo ay ka mid tahay culays inaan la qaybin karin inaan la haysan karin oo laga dhacayo ama laga xoogayo iyo sidoo kale in si sahlan lagaga xadayo maadaama ay sharqamayso ama ay muuqanayso ama culayskeedaba la dareemayo arrinta markay timina waxaan la bilaabay in la isticmaalo lacagta loo yaqaano paper money ama waxa loo yaqaano paper notes-ku waxay ku yimaadeen dadkii dahabka sameyn jiray ama ka shaqeyn jiray ayaa dadkii waxay u ballan qaadeen haday lacagta u dhiibtaan inay siin doonaan rasiid lacagaha noocaasna waxa example ah silver certificate iyo gold certificate shahaado damaanad qaadaysa ama cadeynaysa qofkan in dahab u yaalo ama in qalin u yaalo ayaa soo baxday ciladay la timi ciladahaasna waxa ka mid ahayd credibility-ga lacagtan inaysan ahayn lacag la isku halayn karo maadaama dadka soo saaray ay yihiin dad kala duwan oo meel kala duwan jooga sidoo kale dad badan ayaa waxay sameysteen shahaadooyin feega ama warqado feega oo cadeynaya qofkaas in lacag loo hayo iyadoo wax lacag loo hayn midda ugu dambeysana waxa weeye meel kala duwan ama gobol kala duwan oo wadan kamid ah inaan laga isticmaali karin taasna waxay khasabtay dadku in loo gudbo nooca hadda aynu isticmaalno ee loo yaqaano waxa kale oo jirta qof khasbaya ama awood khasbaysa inay dadkii lacagta isticmaalaan oo meesha ka maqan markay taasi dhacday waxa bilaamatay in la isticmaalo lacagta hadda aynu adeegsano ee loo yaqaano fiat money lacagtaas hadda aynu adeegsano waxa example ah coinska ama lacagta qadaadiicda iyo lacagta dhagweynta ee bank notes-ka loo yaqaano fiat money-gu ma aha lacag iskeed qiimo u leh laakiin waa lacag qiimaheedu ku xiran yahay hadba awoodda dawladdu ay leedahay lacagta noocaana waxa loo yaqaanaa legal tender currency lacagta noocaana ma yeelan wax cilada maadaama ilaa hadeer aynu isticmaalno oo waxay noqotay mid guul gaarta intaasna waxaan ku soo koobayaa heerkii ay soo martay lacagaha kala duwan aynu isticmaalno waxaynu u gudbi doonaa astaamaha lagu garto lacag marka la yiraahdo maxay tahay lacag hore ayaynu qeexideeda u soo ogaanay haddana waxaan eegi doonaa astaamaha laga doonayo lacagta si ay u noqoto mid waxtar leh oo shaqeynaysa astaanta koowaad ee lacagta laga doonayaa waa in la isla wada aqbalsan yahay ama waa acceptability astaanta labaad ee lacagta laga doonayo waa inay tahay mid portable ama la qaadi karo meel kalena la geyn karo lehna qaab loo qaado sidoo kale lacagtu waa inay tahay divisible ama wax la qaybin karo
oo inyaalo yaryar loo kala qaybin karo. Lacagta sidoo kale waxaa laga doonayaa inay isku wada eg tahay oo aan la kala garan karin halka lacag ee isku wajiga ah. Sidoo kale lacagtu waa inay xasilan tahay qiimo ahaan. Lacagtu sidoo kale waa inay tahay durable oo la micno ah inay waqti dheer joogi karto oo aysan isla markiiba go'go'ayn ama aysan baaba'ayn. Lacagtu waxaa laga rabaa sidoo kale inay tahay malleable oo ah inay tahay wax jilicsan oo la laabi karo, sawirro lagu samayn karo ama shaxana lagu qori karo. Astaanta ugu dambaysa uguna muhiimsan ee laga doonayo in lacagtu yeelatana waa scarcity, taasoo ah lacagtu inaysan meel walba iska oolin, qof walbana uusan heli karin. Iminkana waxaynu u gudbaynaa shaqooyinka lacagtu ay qabato. Sida caadiga lacagtu waxay qabataa dhowr shaqo oo kala duwan oo ay ugu horeyso lacagtu inay noqoto medium of exchange, wixii wax lagu kala bedelanay. Lacagtu shaqada ugu muhiimsan ay qabato waxa weeye in wax lagu kala bedesho. Shaqada labaadna waxa weeye store of value, in qiimo lagu kaydiyo. Marka aad shay gadatid, qiimaha uu ku leeyahay waxa aad ku ogaan kartaa wixii aad ka soo bixisay. Marka lacagtu waxay noqotaa store of value. Sidoo kale lacagtu waxa weeye unit of account, wixii lagu kala xisaabayay oo labada qof ee wax kala qaata ama wax kala iibsada ay ku kala xisaabtamayeen oo ku kala xisaabayeen. Functionka ugu dambeeya ee lacagtuna waa standard for deferred payment oo ah in lacagtu ay jaangooyo u tahay lacagaha dib loo dhigayo sida qandaraasyada, deymaha iyo amaahda. Qaybtana waxaynu u gudbi doonaa waxa loo yaqaano demand for money. Sababta loogu baahan yahay lacag. Demand for money waa heerka uu rabo shakhsi inuu hanti maaliyadeed u haysto iyadoo cash ah ama iyadoo wax goyn karta. Heerka wax goynta ee hanti waxaa loo yaqaanaa liquidity, waxayna la micno tahay degdegsiinyaha hanti maaliyadeed loogu iibsan karo badeecado ama adeeg. Cashku waa shayga ugu degdegsiinyaha badan marka wax lagu gadanayo. Marka laga yimaado cashka, waxaa jira hanti maaliyadeed oo badan isla markaana si degdeg ah wax loogu iibsan karo. Waxaana ka mid ah securities and bonds oo ah sheerarka iyo shahaadooyinka caddaynaya in aad shirkad deyn ku leedahay. Sidoo kale demand depositska, lacagaha current account ku yaala. Lacagaha current account ku yaala ama lacagaha ku yaala xisaabta socota iyo time deposit accounts, lacagaha ku yaala xisaabta xiran. Qaybta ugu dambeysana waxaynu ku eegi doonaa sababaha dadku ay lacagta u haystaan. Waxaan leenahay in dadku ay lacag haystaan waxa saameyn ku yeesha sababo badan oo loo yaqaano motives. Motivesku waxay u qaybsamaan saddexda motive ayaynu mid walba halkan ku sheegi doonaa. Motiveka koowaad waxaa loo yaqaanaa transaction motive, waana in qofka shakhsiga ahi uu lacagtii haysto isagoo doonaya inuu mustaqbalka wax ku iibsado. Marka waxaan leenahay motiveka koowaad ee ay dadku lacag u haystaan waa inay mustaqbalka wax ku iibsadaan. Motiveka labaad waxaa loo yaqaanaa precautionary motive oo ah qofku inuu lacag u haysto si uu uga gaashaanto wax soo socda oo keenaya in qofkaasi uu mustaqbalka lacag bixiyo. Motiveka saddexaad waxaa loo yaqaanaa speculative motive oo ah qofku inuu lacagta u haysto si uu uga faa'iideysto waxyaalo mustaqbalka dhici doona sida dhulka qiimihiisa oo raqiisi doona ama sheerarka oo raqiisi doona. Casharkeena waxaan ku soo gabagabeynaynaa doorka ay lacagtu ka ciyaarto dhaqaalaha. Lacagtu door muhiim ah ayay dhaqaalaha ka ciyaartaa, waxyaalo aad u fara badanna way fududeysaa. Laakiin halkan waxaynu ku soo koobaynaa dhowr ah oo lacagtu ay dhaqaalaha ku soo kordhiso. Waxaana ka mid ah in lagu kala qiyaaso badeecadaha qiimahooda iyo adeegyada qiimahooda. Waxaa ka mid ah in wax lagu kala bedesho oo lacagtii wax lagu kala bedesho. Sidoo kale waxaa doorarkeeda ka mid ah in loo isticmaalo marka wax la kala amaahanayo ama wax la kala deyn qaadanayo. Marka la doonayo wadanka wax soo saarkiisa in la cabiro, waxa lagu cabiraa in terms of money. Midda ugu dambeysana waxa weeye sumcadda ganacsiga, qiimaha ganacsiga, faa'iidada ganacsiga, lacag ayaa lagu qiyaasaa.